السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channelka daawanaysan waa Baladi Official. Haday tahay markuu horeyso fadlan subscribe inoo saar. Video hore waxa uga hadalnay cashirka koowaad ee barashada luqadda Turkiga. Maanta waxaan rabaa video labaad inaan soo gelino oo uga hadlayno maxaa la dhahay cashirka labaad ee barashada luqadda Turkiga. Fadlan waxaan ka codsanayaa videogan waa muhiim. haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran channelka Baladi Official, fadlan asxaabtaada la wadaag. haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar. maanta waxaan ka hadlaynaa qaababka wax loo tilmaamo waxa ku dhow waxa la ka fog. qaabkaas aan rabaa inaan ka hadlo iyo maxaa la dhahay kani waa maxay, kan waa adigu kulay waa iska taqaanaan this that macnaha marka English la baranayo sidaas oo kale, iyo what iyo who waxaas ka hadlaynaa. marka waa kuma santi daawashada videoga nala socod. marka asxaabta hadda waa bilaabeena waxaan ka bilaabeena kan qaabkan loo akhriyaa bu shu o. af English keedu waa this that, kan waa iska it ama waxay u taagan tahay. marka bu waxa waaye wax aad kugu dhawaa waxa la yiraahdaa bu. marka iyadoo jumla ahaan waa idin gelin doonaa jumlo qaybtan hoose ku sharxi doonaa tusaalooyin aad kaga bixinaya. marka hadda waxa waaye bu waxa laga wadaa wax aad kugu dhow, macnaha bu wax aad kugu dhow. dadka hore video iga soo codsadeen waxay dhaheen Xasan oo marka sharxayso si tartiib ah noogu sharax si aad ugu faa'iideysano. marka kana waxa waaye shu. marka wax tan iyo tan waxay ku kala duwan yihiin, inta badan dadku isku qaldaan. marka bu iyo shu waxa waaye wax xoogaa ka fog, wax xoogaa macnaha oo ka dheer oo laakiin aad aan kaaga dheereen. macnaha tusaalahan haddii aan tusaale ka bixino kan iyo kan oo kala fiiri. hadda macnaha bu kana u taagan tahay dhahno, shuna waa kana. marka wax saan u kala fog waa marka bu iyo shu, bu shu. marka haddii aad tusaalooyinkaas kasii gudubno, marka o waxa waaye wax aad kaaga fog, macnaha o. marka waxay u taagan tahay English ahaan marka o waxa waaye wax aad kaaga fog, macnaha. marka hadda tusaalooyinka ka bixinayna. marka hadda tusaalaha ugu horeeya waxa waaye bu waxaan dhahnay wax ku dhow waaye. marka haddii aad jumlad gelino waxa waaye bu masa hore soo qaadana waa miis waaye. bu masa kani waa miis, macnaha wax ku dhow waaye. kani waa miis, macnaha miiska marka uu saan yahay oo kale marka dhahdo miis waa kana tusaale ahaan. marka kani waa miis haddaan dhahno fahanti. marka kani waa miis. aan kasii gudubno shu waxaan dhahnay wax xoogaa yar ka fog waaye. marka haddii aan dhahno miiskan uu iga fog yahay, shu masa ka waa miis. marka waa iska taqaanaa af Soomaaliga wax markay ku dhow yihiin, wax markay xoogaa ku dhow yihiin, waxay markaas kaasii dheer yihiin, macnaha tusaalooyinka saas loo kala bixinayaa. marka o haddaan dhahno wax xoogaa ka dheer oo kaasii fog, macnaha o masa kaasi waa miis. o masa kaasi waa miis. marka haddii aan tusaalooyinka ugu baxno bu iyo shu iyo o, marka ayadoo lagu daraayo macnaha what, macnaha kani waa maxay markii la dhahayo camal. kan waa maxay tusaalooyinka haddii aan sii wadno bu oo lagu daray ne waaye. tan akhrinteeda ne waaye. marka bu nadir meesha anaa bracket geliyay, ha ku qaldamin asxaabay. dirtan gadaal aad kaga sharxi doonaa waa wax lagu ta'kiidinayo waaye. marka maxay dhahan verb to be, English keeda verb to be ma ahan. adigu waa wax ta'kiidin ku ah, macnaha bu nadir kani waa maxay, kan waa maxay. bu waa soo qaadanay wax ku dhawaa dhahnay bu nadir kani waa maxay. marka tusaalihii ayadoo aan sii wadno bu dolaabtir kani
bu dolabtir kani waa dolabad kani waa armaajo bu waa taqaanin bu wax ku dhawaayo waxaan marka bu kimdir markaan waxaa isticmaalayna kim oo ah hu marka kimsin hadii loo dhaho yaa tahay camal waa ma fahanti kimsin hadda laakiin aniga kimsin nooma ahan meeshaan bu kimdir kani waa ayo ama kani waa marka hadii aan kim meesha ugu baxno hadii ay kugu soo celiyo mar labaad bu kimdir dirtan waxa waaye wax lagu ta'kiidinayo waa macnaha waxaanay ta'kiidinaysaa ma fahanteen marka hadda bu kimdir kani waa ayo ama kani waa kuma okay waxaa leeyahay jawaabtu waxay noqonaysaa bu oretmandir kani waa macalin bu oretmandir kani waa macalin marka su'aasha saasa lagu soo weydiiyay asxaabta hadii aan sii wadno barnaamijkii cashirkeeni ahaa oo ku saabsanaa barashada luqadda Turkiga hadda waxaan joognaa shu oo aan soo sheegnay oo ah macnaha wax xoogaa ka fog oo ka dheer marka hadii aan ku darno shune hadii aan ku darno maxay noqonaysaa shune ka waa maxay macnaha wax lagu weydiina wad camal waa macnaha fahanteen marka shu kitab ka waa book kitab waxa lahaa book fahanteen marka wili hadii aan sii wadno oo waxaan gelinaynaa aan ku xireynaa macnaha iyadoo connection gareynayna marka kaasi waa maxay wax ka fog macnaha waxa waaye wax aad kaaga fog waaye marka kim hadii loo dhaho marka waxa waaye kaasi waa maxay marka tahta taasi waa sabuurad kaasi waa maxay tahta waxa waaye tahta waa sabuurada caadiga ah tajaasada loo qaato tahta taasi waa sabuurad marka asxaabay hadii aan soo dulmarno cashirkeena maanta waxa qaadanay bu shu marka ah wax aad u dhow iyo wax xoogaa ka dheer iyo wax aad kaaga fog marka tusaalooyin aan ka bixinay waxa tusaalooyin ugu bixinay bu masa kani waa miis bu waxa waaye kan waa macnaha wax aad ku dhow macnaha bu kim hadii loo dhaho kani waa kuma marka shu masa kani waa miis macnaha wax hadda marka wax yar ka fog waaye shu masa miis wax yar ka fog tusaalooyin hadda kan iyo kan hadii aan dhahno wax hadda saan u kala fog yihiin wax hadda saan u kala fog oo kale marka saan u kala fog wax saan u kala fog waaye hadda kan iyo kan wax yar isku jiraan ma fahanteen wax saas camal marka shu masa kaasi waa miis marka asxaabay cashirkeena maanta intaanu noogu egyahay waa ku mahadsantihiin daawashada videogan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen cashirkeena maanta waxaan rajeynayaa inaad la wadaagtaan asxaabtiina baladi official aad idin jecelahay